lacag ma laga samayn karaa suuqa cryptocurrency waa su'aasha ugu badan ee asxaabtu u soo weydiiyaan luuqa haddii halaheed WhatsApp-ka iyo Facebook-ka labadaba. waxay raadaan ku tuso trade-kan waxa ka qaatay coin-ka Solana waa 12%. caadiyan marka aniga targetkii waa la gaaray oo suuqa halkaas waa iskaga degay markii la gaaray. caadiyan waa iska dhaaqay suuqu ilaa iyo agaas ay wax sii sameeyeen dhaqaaq aan caadiyan buu sii sameeyay laakiin aniga targetkii wuxuu ahaa agaan resistance level-kaas ayuu ahaa waana uga degay. marka saaxiibayaal ka waran haddii qofku ku soo gali lahaa $1 oo kaliya hadduu ku soo gali lahaa meeqa lacag ayuu heli lahaa aan isla xisaabino. haddii aan ku dhufano $1 12% waa $11. ka waran marka hadduu qofku ku soo gali lahaa 5,000 10,000 20,000 100,000 milyan hadduu ku soo gali lahaa ka waran bal $1,000 inta laga sameeyay bal ka waran hadduu inta ku soo gali lahaa. marka caadiyan saaxiibayaal suuqa lacag way taalahay wuxuu u baahan yahay ka faa'iideysi iyo in aqoontii si sax ah qofku ula yimaado ay u baahan tahay. intaana badan dadkeena waxa ku qufulan fikradda ah quick rich maalin taajir lacag raadi money oriented waxyaabaha noocaas ah ugu qufulan. saaxiibayaal marka si arintaas looga hortago waxa asal ah in qofku haysto aqoon oo suuq uga shaqeysto. aqoontu waa midda kaariga karta yani inaad suuq ka samaysid faa'iido sidoo kale waa midda lacagtaada gubi karta aqoon la'aanta. aqoon la'aantu lacagtaada way gubi kartaa aqoonta lacagtaada way kubci kartaa aqoonta ayaa asal ah. marka saaxiibayaal dad aqoonin waxaan baro meel allaala meesha ka baro laakiin wax baro marka hore kadib lacag keen intaas ay ga tala saaxiibayaal hore u socda suuqa lacag waa taalaa qaab fara badan ayaa loo faa'iideysan karaa haddii halaheed trading-ka investment-ga waxaas dhan fursado ka furan.